السلام عليكم وعد السلام دمانتين ان maanta waxaan idin wadaa qiso ku saabsan ninkaas ay arkaysaan wiilkaas waxaa la dhahaa Grant waa nin la 29 jir ah wuxuuna ku wadankuna ka dhacday sheekadan waa Mareykanka waa state la yiraahdo Florida wiilkaas wuxuu la deganaa walaalkiis ka weyn hooyadiisa aabihiis website-ka ayuu wuxuu ku bartay online gabdhahan la yiraahdo cam girls gabdhaha nimanka wax u soo sameeya ma aragtay ee ka shaqeysta nimanka jirkooda ka shaqeysta laakiin si online ku shaqeysta ayuu ku bartay waa kaas isagoo hooyadiisa aabihiis la sawiran hooyadiis waxa la dhihi jiray Margaret oo 61 sano jirtay aabihiisna waxa la dhihi jiray Chad 59 jir ahaa walaalkiisna waa kaasa oo ma aragtay waxa la dhahaa Cody family waxay ahaayeen ka kooban 3 wiil iyo hooyadii aabaha walaalka ka weynaa jira laakiin oo Jason la dhaho guriga kuma nooleen marka labadan wiil ayaa guriga ku noolaa aabahoodna waa kaasa reer waxay ahaayeen oo ma aragtay lacag iska haysto maasha Allah oo ma arkin iska ladan wiilkii marka family close ana way ahaayeen oo aad ma aragtay soo xiran gurigaas weyn way deganaayeen marka wiilka markuu online ka gabadhan ku bartay obsession ayuu ku noqday uu ku waashay lacag badan ayuu u diraa gabadhii waa gabadh uu weligiis xataa live ula kulmin online kaliya ayuu gabadha lacagta uga diraa 200 oo kun oo dollar oo aabaha uu leeyahay ayuu gabadha u diray aabaha iyo wiilka walaalkiis ayuu u diray family markay ogaadeen waxay dhaheen يعني حتى way charge kareen way xiri kareen waxbay ku sameyn kareen waxay dhaheen anaga waxba kuma sameynayno wiilkeena tahay laakiin waxa waa inaad tagtaa rehab waxba ka qaldan depression iyo sex addiction ayay waxay u geeyeen rehab meel facility oo qaali oo lacag badan ay ka bixiyeen waxay dhaheen meeshaas tag 60 maalmood waa inaad ku jirtaa 2 week markuu ku jiray ayuu ka soo baxay guriga markuu soo noqday waxay ku dhaheen conditionka aan gurigeena u joogay iskaliya wuxuu yahay inaad naagta xiriir aan la yeelanin wuu la yeeshay marka misaaj ka joogi kara naagti xiriir la yeeshay aabihii waa ogaaday because lacagtii uu bilaaba inuu siiyo xaada guriga ka xaada ma ogtahay gabadhii markuu la ogaaday odayga wuxuu ku dhahay guriga uu ka eriyay laakiin wuxuu ku dhahay credit-kayga qaado ilaa inta shaqo ka helaysid hayso wiilkii walaalkiis koodin wuxuu ku yiri anaa hooyo aaba kala hadlaayo ana kaarkayga hoo yani wali saasay tahay way sii wanaajinayaan kaarkii uu siiyo waa yaraanka cidda waa nin spoiled ah kibirka ka batay sometimes ilmaha lacagta way baabi'isaa marka waxay sameeyeen ninkii wuxuu yiri see uu baxanaaqayba sidee aan naagta laga celin karaa iyo lacagta u baahnaa sidee la iga celin karaaba hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalkiis ka uu kaga siiyay waa kaas isagoo maxkamadda la saarayo waxa lagu ma aragtay charge gareeyay 3 count waxa laga badbaadiyay state-kaas wuxuu leeyahay the death penalty qofka in la dilo wuu leeyahay state-kaas Florida laakiin isaga waxay dhaheen life in prison noloshiisa inta ka hartay jeelka ayuu ku dhameysanayaa halkii wiil oo Jason oo curadka ahaana ayaa hadda banaanka taagan oo isagana yimaada meesha oo aad ma aragtay u murugeysnaa